waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo kale waa maxay sababta shabaab ay u beegsadaan siyaasiyiinta hawiye oo kaliya ama meelaha hoteelada ganacsiga ay leeyihiin oo kale hawiye ama ganacsatada gaarka ay cashuurta xooggan ugu qaadaan waa maxay sababta u gaarka ka dhigay hoteelada muqdisho hawiyuhu ay leeyihiin adoon ognahay inaad tahay nin hawiye ah anaga waxa weeye qabiilka waxaan aaminsanahay ilaahay ka yiri subxaanahu wa tacaala inuu yahay litacaarafu la isku garto la isku xiriiriyo ninba qaraabadiisa uu ku xiriiriyo in adeerka iyo qilibabtiga iyo cidda baahan la isku garabsiiyo sida inuu yahay laakiin waxaa rabaa in la isweydiiyo meelaha hadda hoteelada lagu sheegayo hoteelo ma yihiin mise waa xerooyin ciidan weeye waxaan ognahay hoteelada muqdisho ninkii tegey yaa garanaya kolley hoteelana waa hoteelada shacabka muslimiinta caadiga iska seexdaan ummaddu ay degan tahay weligeed al-shabaab ma aysan qarxinin laakiin hoteelada maanta la qarxinayo dhammaantood waa la fiiriyo awalan waxaa lagu gadaamay waxa weeye dhagax waaweyn oo waxa weeye difaacyo ah ثانيا waxaa lagu soo xashriyo lagu soo kulmiyo lagu soo ururiyay ciidan iyo jiis kala duwan oo inta ilaalinaysa wax meesha ku jira taa waxay tusinaysaa meesha inaysan hayn hotel inaysan hayn ay hoteelada dadka shacabka muslimiinta ay degan yihiin lama ilaaliyo dhagax lagu ma gooyo qadiyada labaad waxa weeye inagu waxaan la dagaalsanahay dadaan la dagaalsanahay dadkaas waxa weeye dadka gaalada ah iyo dadka gaalada raacsan ee murtadiinta meesha ay galaan magaca ay u baxsadaan ictibaar ma laha haddii xero caskari ay dhahaan ama ay dhahaan xero ciidan iyo hadday u bixiyaan intay degaan ay hotel u bixiyaan macnaha isku mid weeye waxaan leenahay marka hoteelada waxa loo yaqaan maanta illee waa la qarxiyay dhammaantood waxay xeraan ciidan weeye waa wasaarado ay leeyihiin nimanka gaalada raacsan iyo gaalada laftigooda ay leeyihiin wasaaradii maaliyadda hotel ay degan tahay wasaaradii waxa weeye gaadiidka cirka waxay ku tulaan hotel ay degan yihiin wasaaradooda waxbarashada